Is the capital and largest city of Somaliland. It is located in the Marud-Egypt region of the Horn of Africa. It succeeded Berbera as the capital of the British Somaliland Protectorate in 1941. Hargeisa was also the second largest city in Somalia after the capital Mogadishu. أنا وحنا سو قادي كريا بقى لكن dharka bacaha waaweyn baa dhulka saa loo dhigay kabaha wixii la soo guri karay waa lagu soo daadinay wixii dharka la soo qaadi karay la soo daadinay kadib bacda la soo duubay dadku wax saasay u soo qaadiyeen saasay kala soo jiidayeen inkastoo meel fudud waatay laakiin عافرنا تفعل واركينين marka dadka gurmadka ugu badan caawa meesha ka sameynaya waa dadka dhalinyarada ah ee magaalada Hargeysa oo dadkooda si fiican oo wanaagsan oo aad iyo aad u gobonimo leh dadkooda waxa soo dhawaaday fooqan oo taagneey mid kamid ah inta ayuu soo gaar dabku si fiican u arkaysaan waxa jira iyagu dad suuqan xilli hore ka raaxaa sida 5 galabnimo ilaa 6 salaadii maqrib kadib ka raaxay baa jira dadkaas waxa ay u badnaayeen oo kamid ahaa hooyooyin ganacsiga yaryar meesha ku lahaa oo sharabaadada iyo waxyaabaha yar ama dawaarka biraha yar dawaarka lagu shaqeeyo dharka lagu talo waxyaabaha soo kale ay kamid yihiin imika halkan hoos largest city of Somaliland. It is located in the Marud-Egypt region of the Horn of Africa. It succeeded Berbera as the capital of the British Somaliland Protectorate in 1941. Hargeisa was also the second largest city in Somalia after the capital Mogadishu. وشوف لنا